maxamed kaahin axmed iyo muuse biixi muxuu yahay khilaafka ka dhaxeeya halkee ayuu salka ku hayaa labadan mujaahid ayaa go'aanka ugu dambeeya lahaa Somaliland 7 sanadood ee ugu dambeysay marka laga reebo 8 bilood ee ay xilka hayso xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana la aaminsan yahay inay yihiin laba siyaasi oo ay ka dhaxayso saaxiibtinimo soo jireen ah oo qotadeedu dheer tahay taasi oo ka soo bilaabmaysa xilligii jabhaddii SNM ee dib u xoreynta Somaliland loogu jiray halganka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye maxamed kaahin axmed ayaa marar badan u soo godoobay muuse biixi sida oo kalena goob xun ka raacay waxaana ka mid ahayd xilligii xukuumaddii Siilaanyo oo ay labadooduba dibad wareeg noqdeen ilaa iyo markii dambe ay guuleysteen oo uu noqday madaxweyne hore muuse biixi gudoomiyihii xisbiga kulmiye iyo murashaxii waqtigaasi 2017 uu sidaasi ugu guuleystay talada Somaliland waxa ku xigtay muddo 7 sanadood ah oo uu maxamed kaahin ahaa wasiirka arrimaha gudaha balse lagu soconayay talada iyo soo jeedinta madaxweyne hore muuse biixi cabdi iyadoo markii labaadna madaxweyne hore muuse biixi isa soo taagay sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada gudoomiye maxamed kaahin ayaa xilligaasi waxa uu waayay kalsoonidii deegaankiisa maadaama xeerkii xisbiga kulmiye uu yilay uu ahaa in la cabo balse aan la rakaadanin oo aanu ku soo noqon madaxweyne kastaaba marka labaad hase yeeshee ninka gudoomiyaha ahi uu isku noqon jiray murashaxa iyo gudoomiyahaba tanina waxay ahayd maalin kale oo maxamed kaahin uu dhisayay saaxiibkiisii muddada dheer ay soo wada jireen markii dambena wada guuleysteen oo ahaayeen labada siyaasi ee go'aanka ugu dambeeya lahaa wax kasta oo ka dhaca gudaha Somaliland muddada 7 sanadood ah ilo wareedyo ayaa sheegaya ay xogogaal heshay in ay isku qardhaafeen dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood oo uu go'aankooda lahaa sida uu madaxweyne hore muuse biixi u sheegay saaxiibo ka agdhow soo deyntii garaadada iyo ciidamadii tirada badnaa markii dambe dagaalka ka bilaabay magaalada dhexdeeda may ahayn se wax saaxiibtinimadooda soo afjari kara ee waxay ahayd xurguf iyo yaroo calool ku hayna oo ay markii dambena la dabaasheen maadaama oo ay tuurto u riteen sababihii iyo guuldarrooyinkii ka yimid magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool balse gudoomiye maxamed kaahin axmed waxa uu si weyn uga xanaaqay xilligii ololaha ah oo madaxweyne hore muuse biixi uu magaalada Burco maalin ka jeediyay hadallo xanaf leh oo uu ku weerarayo beelaha bariga Burco kuwaasi oo ay cod ka doonayeen iyagoo olole ku jira xilli tartan xooggan uu ka socday wadanka ayuu muuse biixi ku beegay hadalkiisaasi iyadoo uu ahaa mid maxamed kaahin dilaya waana hadalka go'aamiyay codka beelaha habar jeclo inuu u janjeersado xisbigii mucaaradka ahaa haatanna xisbil xaakimka noqday ee wadani iyadoo aan dhig jalaq loo siinin odayaashii go'aamada ka soo saaray magaalada Ceelaf Weyn oo ay ahaayeen rag aan saameyn badanba ku lahayn deegaamadooda ayaa hadallada xanafta leh ee shakhsigii la dooranayay ama murashaxii waqtigaasi ay keeneen go'aan dadweyne oo ay dadku dhinaca kale ugu janjeersadaan taasina waxa ay sababtay guuldaradii ay kala kulmeen doorashadii 2024 gudoomiye maxamed kaahin axmed ayaa soo haray markii madaxweyne biixi uu ka baxay saaxada siyaasadda balse waxa dhashay khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay xisbigii kulmiye kaasi oo ilaa iyo haatan taagan loona maara la'yahay iyadoo ilo wareedyo aan rasmi ahayn ay sheegayaan inuu muuse biixina qayb ka yahay maadaama uu mustambeedka iyo odayaasha xisbiga ka mid yahay xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in doorkiisu uu meesha ka maqan yahay oo uu daawade ka yahay gabi ahaanba khilaafka u dhaxeeya kulmiye kaasi oo ilaa iyo haatan xalkiisii la la'yahay waxaana ay dad badani aaminsan yihiin muuse biixi muu gudin abaalkii maxamed kaahin iyadoo uu saaxiibtinimadii kaga baxay meel bannaan halka ay dad kalena aaminsan yihiin inay yihiin mataano labada mujaahid oo aan cidi dhex geli karin khilaafka dhaxeeyana aanu jirin gabi ahaanba ma u baahan tahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumtiisa maxadka luqmaan alxakiim islaamic online maxadku maadooyinka uu bixiyay waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo axkaamtiisa barashada hingaada iyo qoraalka barashada ducooyinka barashada xadiista nebiga barashada luqadda carabiga barashada luqadda Soomaaliga haddaba si aad iska diiwaangeliso kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda